روحي حوين نعبو هايستاهي نيبا معها روحي هبلها نبارو كيستاهي نعصوين روحان كسين ناسكي وشقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوتيوب هذا طبعا سوى عبد الفتاح قاسم دبلن اسمه اسمان ومقل. انت انا حول ما نيجو معنا ان شاء الله وسوق بجميل دونا هلكن waxaan garabkay fadhiyo oo kusoo dhaweynay youtube-kayga garasho star garasho oo wiilkan maalmaha la dhiglayay ya ifmaad soo duuba wad kale wad garanaysi filinkaas ya kaas filin kala waa markaas ma sha Allah soo dhaw walaalkay oo martimaantay ah oo magaalada wada joogno ma sha Allah oo ku faraxsanayn markasta garabkayga tahay ana garabkaaga nahay ma sha Allah halkan maanta waxaan ku duubaynaa waxaad nooga bartay marka qalbara action iyo filmaan labadaba ka duwan waxaan ku duubaynaa waxa weeyaan sababaha kalifi in dumarka ciimahooda ka qaarkood ay soo bandhigaan ay waxyaalaha sameeyaan waxyaalaha maqlaysan ugu dambeysay xitaa fanaanda Safiya Tusma lagu sameeyay xaaladii la socotay marka horta soo dhaw ma santa brada adiyan kaga madcelinaya waqtigaad siisay iyo asxaabta quruxda badan oo meesha kugu jirta ayagana waa salaamaya kulli wajigayga hada kaliya in kama hor imaanayo marar badan ma arkaysan diyaarada ما شاء الله انت سبحان كراشو وين دي سويت يا ويس halkan waxaan ku bilaabaynaa in sababaha kalifi maxay tahay in mataqaanay garashoy ay rag waxa u sameeyaan waa dumar weeyaan way nala dhasheen waanu dhalnay waanu qabnaa yani dumar baad ila doontaa insha Allah ubad ilaahay ku siin doono insha Allah adigoo taasku in gabadh ceebteeda iyo barifaadkeeda iyo hawleeyda xitaa hadii aad hayso wax dhaceen inaad soo bandhigto social media intaas milyan qof daawanaya oo sharafteeda aad ku kala gasho waxa ku kalifi rag orna saarka dhibaatada jirta maxay tahay wallahi niyo horta aad iyo aad u mahadsan tahay aniga ahaan garashaan horta waxaan aaminsanahay nin raga oo gabar ka daba qaatay ama gabar foodeeya ama gabar raba inuu xumaanteeda faafiyo kaas nin raga uma aqaan markay timaado raggu waa isku wada jiraan oo kuwa surwaalka iyo shaatiga nala gashan waa jiraan oo aan u naqaano rag waa kayaal laakiin rag aan ahayn dhaqankay leeyihiin uusan ahayn dhaqan nin raga uu ku dhaqmo gabdhaha walaalaheena waa nala dhashay sidaa sheegtay waana dhaleen waa u nolo dhaxayaan waa dhali doonaa sinaba uga maarmi ma karno gabar Soomaaliyeed marka nin gabar Soomaaliyeed xumaanteeda faafinaya aniga ahaanteyda garasho kaas niyo nin uma aqaaniyo على إن رجني ما سأسوي أنت لقى قاضو قف دمر للسياق إيجا قيمة بدن على سبتها أيدي أك قيمة بدن كاحترام بدن ك سمعت بدن مركات فيه سواها أو كل رقمي مركا كل ينيو والله وأنا مسنا نرجع لقى كاس ماري بس إذا أنا يا مسنا مركا قبل إننا كل مرة الباق أي كقل دميانو اللي سوال كوال ودكشين سوق وده يا لامك طبعا سلوسو يبسدوا وحي الله استعماله وفضوطه مركا لكن دقنكي iyo xushmadii iyo waxyaalo badan oo aan lahayn oo anaga hadda hadlayna celiniya jiro oo aan ka gudbi karin marka ay timaado xaqiiqda ma gudbi karno marka wax walba waa sameyn karnaa laakiin ma gudbi karno markay meesha xuraya wayna ogaataa talaabada qaadayso qalad ma saxba adiga laftigaaga waxba ku soo noqonaya si wanaagsan sidoo ugu gudbi kartaa xaaladda imika dad qalad ka sameeyso ku soo noqonaya in qof dumar ayaa brifaadkiisa social media waxyaalaheedii ilaahay waa xitaa wadada marka socota leeyay waraaq la kala xishoodo ala istiraamo ayaa rabtaa adiguna inaad intaas ku milyan oo qof hor dhigto marka ma ku sharfa maxaa marka rag u ceebeynaysa maxaa marka mina gabadh adiga ku dhalin marka taas sameynayso marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ku diirayaa in ay ka fiirsadaan noloshooda iyo mustaqbalkooda maalin walba anagu ma taagnaan karno gabar Soomaaliyeed wax laga xaday dhibaatadaas ma taagnaan karno ay case hadinaan ka fiirsan karin walaalayaal oo hana wada ajaafeynina oo ragga Soomaaliyeed oo dhan hadda mali waa wada xun yihiin moodo xuma baasha jamaca ka daaya afar xabo xuno de aan sheegnayo surwaalka nala gashan laakiin aan ragnimada iyo waxyaalaha xira aysan jirin oo looxa kaasna looma qaban karo laakiin marka ay timaado waxyaalaha qaar adinku laftirkiina private horaan uga hadalnay dad badan oo ka hadlaya jira qof haduu ku yiraahdo sawirkaaga ii soo dir ma ahan qofkaas qof dankaale طبعا حقيقة haduu ku yiraahdo videogaaga rabaad ma sabab maxaa jirtay marka kaba soo qaad dadka xaaska oo familiga ah oo wadaagaya ayagoo isla jooga hadana wadaagaya muuqaalada ay ayagu jirkooda qaaween ama ay si yihiin wadaagaya ayagana waxaan kula talin lahaa waxaan technology-ga la leeyahay ma aha sokor macna ma aha waxaad aamini karto oo aad waxaaga ku kaydsan karto adduunkan wax kayda ma jiraan iyo marka inta aadan falin ka fiirso
waxbaa ku kaydsan taleefankaaga waayo wuu dhumi karaa waa la jabsan karaa waa la xadi karaa waa la dirsan karaa ha aaminin taleefankaaga macnaha qof teeda kale dhaqan xumo way ragga qaar oo dhaqankaas wadan waxaan u sheegayaa nimayow haddii ay tahay qofkan dumarkaaga haddii ay tahay qof kula nool ama kula joogto aad isla joogtaan oo isku guri joogtaan oo inaan kala maqnayn in case de adigu qof hadda kaa soo horkacay maxaa ku falaysaa soo qaawan taleefankiisa bal waayahe sabab ma taqaanaa markaa aad kugu kalifaya ma taqaanaa in ma taqaanaa aad gabadh ceebaheeda aad usoo bandhigaysaa ma fahamtay maya taas wanaagsan maahan cid kastoo ay ku dhacdaba kolley casharay ka baran doontaa soomaaliduna waxaa fudud inay ilaawdo horay u dhaceen waxaan wax hadda noo cusub maaynaa goormay dhaceen horay u dhaceen waxaan waxyaalo hore u dhaca weeye waxyaalo soo noqnoqda weeye waxyaalo 24 sac taagan weeye annagiina waxaan u baahannahay waxaan inaan cilmi ka kororsano war waxaan shalay yimaadeen maanta maxaa soo celiyey ila shalay ma maqlayo waxba sababta jirta maxay tahay ilaawshadeena dhownaadeen marka midna waxaan ku darayaa tusaale ahaan iminka waxaa laga yaabaa 1 iyo 2 iyo 3 ma in hablaha cabashadoodu ay soo bandhigaan oo iyaga ooyiga laga ooyiyo oo qofka hadduu qalad sameeyey laftiisa uu qalad sameeyey ilaahay uma la xisaabtamaya taa adigu xisaab ma haysid taas adigu waxa weeyaan inaad ceebaha qofka bini'aadanka asturto hal ceebo qof leeyahay aad soo faafiso qolkaada ceebo aad leedahay ba ayuu mataqaanay ceebaha la faafinaya ma fahamtay adigu markaa qof aanan qalad sameyn qof aanan bini'aadan qaldamin qof aanan ceeb lahayn wax ku dhicin ma jiro adduunka qof kastaba qalad uu sameeya qof kastaba mataqaanay god uu ku dhaco mar dhibaato ku dhacdaa qof kastaba qofba kulli og inuu ilaahay asturo qofkaas loo baahan inuu mataqaanay asturo adigu markaa dadka asturto ee dadka ixtiraamto ee wixii ceeb aad ka fogaato adigana waa laga fogaanaya sax amaande hal mid waxaan raacin lahaa ragga youtuberada ama dadka social media isticmaal qofka social media isticmaalo qaab kasta u isticmaali kartaa qaab kasta wanaagsan ayaad u isticmaali kartaa waxaa jira qof baa lagu leeyahay wuxuu doodayaa qof sawir xagga dambe la soo dhiganaya qofkii imsa kuna qof markaa daawasiisay isla qaladkii gabadhii iyo wixii ceebtii inta la soo qaato ayaa xagga dambe la soo dhiganaya intee kuna qof markaa waa runta waxaa jirtay sheeko badan oo aniga garashahaan aanan ogeyn oo social media ka dhaca wallahi sheekooyinkaas rag youtuberaa faafina oo aniga itusaay kabacdi markaa wixii arkaan dhahay horta waxaan ma jiraan mase arag sababtaa adiga waxaad iska dhigaysaa haddaad youtuber tahay adiga waxaad iska dhigaysaa inaad qofkii difaacayso haddana anigii oo youtube ku jiro oo waxba ogeyna itusaysaa baraa saa inaan raajo wixii haddii kow si wanaagsan in case haddaa waxa ka hadlaysa ha isticmaalin wax sabab wax muuqaal ha isticmaalin afka ka hada qofka magaciisa ha sheegin qari qofka privacy-giisa oo qofka xogtiisa qari si dadka daawanaya aysan u ogaan waayo qof kasta wuxuu jecel yahay Soomaalidu aad iyo warka u jecesha waa la faaday wixina ma dhamaanaya gabadha isla sawirkii ka hadlaysay ka ooyeysay ka dhibaataysanaysa waxay og tahay dadka social media uga hadlaya ee gabadha ceebteeda war ka aamuso gabadha ka aamusan leeyahay dadka ugu badan ee faafinaya ee hawsha wada yihiin haddaad ka aamusto oo tiraahdo aad ka hadasho oo tiraahdo war rag baan nahay war aan xishoono war dumarka hala daayo war dumarka qaladka lagu wada hala joojiyo oo qof sawir soo qaata la waayo halka qofka soo qaatana la wada hawada laga soo cunay harkiisa bood la saaro matqana wixii ma faafayo gabadhiina way qaboobaysaa isla waxay og yahay qofka qaladka musa u galo kun qof oo social media isticmaalay TikTok tahay YouTuber tahay intaas qof soo qaata sawirkiisa teeda kale dadka sawiradooda ama muuqaaladooda ayagoo ogoleyn la isticmaalo social media sharciyu leeyahay qofna kuguma xadgudbi karto qofna waxaadan samayn sawirkaaga kuma qaraaban karto kow akoonkiisu weynaya labo meel walbuu geli waa ka saari kartaa macnaha dadkeenu jaahilnimadaasna waa keenaysa xogaa inuusan qofkii xataa aqoon war aniga sawirkayga haddii la xado xagee la geeyaa Soomaali waxay tiraa ninkii buunkaaga xado xaguu ku yeeri runta la isku jira horta wallahi ka faa'iideysta sharciyaad jira qofna qofkiisa wixiisa lama xadi karo inteena Yurub joogta qaasatan dadkeena Yurub joogta inta waxayna la xada lama faafin karaa beena sharciyo badan waxaa jira diidaya oo social media shirkadaha waaweyn naasaha ka tumaya oo aan jixin beena marka barada haddii aad dalka joogto in kugu dhacdana report aad samayn karto waxa dhigi kartaa qofkan waxay gooxaday qasabay ku tahay shirkadu inay tijiso bilaa shar mifaham marka aqoonta in layn ku handado adinkoo wixii ku jiraan haddana layn kugu bootay qofka weydiin kartaa haddii waxaan aqoonteeda lahayn
ما شاء الله إمك قرش روح إنه فائدي هدي سوشيال ميديا هتكون كارتو وح أنا الله هنا قف استعماله إن الدعوين كرتو مين كده معها قف حكم قال كرو ويديني عادي قمية إليهن مسقف صاحبك وروا أنا حقوقك كين الأولى ما شو قف كسو صار صور كوب يلا ده واجليني أفر لا تسعكم الجيران ما شاء الله تاسو wax ka faa'iideysanaya in dadka ka aqoonta badan leh ama su'aalaha inaad wax weydiiso oo wax loo diceema qof anu adad wax aqoon qof wax ku dhalan ma jiradi wax hadda ma wada baranay maalin kasta wax cusub baranaysa fahmi marka in waxyaalaha social media aad ka barato wax fiican waa wax wanaagsan dadka inaad wax fiican soo gudbisana way fiican tahay inta u badanna dadku wax fiican soo gudbiyaan rag dumar badan xalay waxaan daawanay wallahi been ku shamaanay ka garashan daawanay gabadh fanaanad oo la yiraahdo ma taqaanaayay Faadumiina way ooyisi wallahi alcabid YouTube keedii la iska dabay YouTube keedii baa la jabsaday halkana lagu sameeyay wala daba taagan yahay way maalin silma la soo taagan tawaayay marka dhibaatada adiga ku haysid qof dumar aad u dhibays maxay tahay leema ku dhaarnay maxaa waa sidaan sheegnay waxaan rag ma ahan waa rag waake dadkan sharafta noo ilaaliyo dadkan qaybinayaan anaga han ceebeenina ilmaadeeriyad hadii ceebtu ku tahay hal iyo laba tiin waan yaqaan marka waxaan dhilaa dadkiina kale ka digtoonaada waxyaalo badan gabadh baa qoor latay gabadh baa qabtaa taasoo maxay hadii Allah faagu maxay taasoo maxay marka adiga farqigaaga ka arkay ilaahay ku furdo inuu ku guda uma maray dikiiro kale farqiga ka arkay marka intaas ku soo gabagabeynaa kaliya waxaan ka hadlay mawduucina uu yahay in sumcadda hablaha Soomaaliyeed la eego in sumcadda gabadha qoorda la taajariso in sumcadda hooyada ku dhashay maamo adduunka lagu jecel yahay ilaaliso in sumcadda qof dumar oo walaashaya oo walaal ku leedahay oo marka garab joogto walaal iyo kalgacal iyo jifraad u furayso hadhowna aad rabtay inaad ma taqaanaayay sawiraanta sida khaldan ama mobilka ugu shaamay si khaldan aad uga qaaday inaad ku taagayso ma taqaanaayay aad ku eriyato ood ku ceebayso ku oohiso ilaahay inuu kula xisaabtami doona adigana ma liibaanis adiguna ma liibaanis marka kolley waxa rajaynayaa inaad ka faa'iideen muuqaalkan inta ku kulmi doono muuqaalkeena muuqaalka xiga ila yiraahdo peace